الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. أحبتي في الإسلام، marka hore ينبغي للمسلم qofka muslimka waxa uu haboon inuu xaqiijiyo ama uu ku dadaalo gaayadii iyo yoolkii loo abuuray inuu dhammaystiro ama uu la yimaado, kaasoo ah Allah subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa. rabbi leeyahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun. uma intaas kadib inuu awaamirtii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faray uu la yimaado, nawaahidii iyo wixii uu ka reebayna uu ka tago. uma intaas kadibna iqhtinaam alfuras, in xilliyada iyo mawaasimta khayriga xilliyada way kala fadli badan yihiin. allah subxaanahu wa tacaala baa kala fadilay, amaakinta iyo dhulka waa la kala fadilay, zamanka iyo xilliyadana waa la kala fadilay. marka rasuulku sala allahu calayhi waaalihi wasalam bishaan wuu ka hadlay, waxayna leedahay fadli aad iyo aad u badan bay leedahay. waxaa ka mida inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam soonkeeda ama bishaan oo la soomay ama salaada la tukaday buu labadaba ka hadlay. afdalu salaati bacda almaktuubati salaatu lleyl وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. يعني رسولك قال صلى الله عليه وآله وسلم صلاة لتكدو مركي لغتغو صلاة واجب كي شنطة وحا أفضل بدن صلاة الليل كا صوم للصومنة مركي لغتغو بشهر رمضان وحا أفضل بدن بشان أن كجرنين ما انتبلتي أو بشهر محرم ayaa ugu badan ugu fadli badan soon la soomo. marka rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam sababtan ay ku timid in maalintan tobnaad ee caashuura uu soomo, riwaayaad badan oo baa ku soo arooray. xadiiska cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu leeyahay min xadiis uu soo saaray imaamu bukhaari, rasuulka ayaa wuxuu soo galay sala allahu calayhi waaalihi wasalam magaalada madiina. magaalada madiina markuu yimid wuxuu arkay yahuuddii oo maalinta caashuuraa maalinta tobnaad soomaya. wuu weydiiyey oo wuxuu yidhi maxaad u soomaysaan maalinkan? waxay yidhaahdeen waa maalin wanaagsan, haadaa yowmun saalixun, haadaa yowmun naja allaahu banii israa'iila min caduwihim. waa maalin wanaagsan, waa maalin ilaahay ka badbaadiyey reer bani israa'iil cadowgoodii oo fircawna, weliba fircawn iyo ciidamadiisiina alla uu halaagay. fasaamahu muusa ayaa marka soomay. riwaayada muslim shukran lilaahi, ilaahay uu ku mahadinaayo ayuu u soomay. rasuulku wuxuu yihi salى اllahu عalayh waali wasalam faana axaqu bimuusa minkum. haddaba aniga ayaa idinkaga xaq leh muusa, idinka anaa idinkaga xaq leh. sababtu uu kaga xaq leeyahay wa ficlan rasuulkaa kaga xaq leh muusa yahuud. maxaa jira laba nebi ayay isla yihiin labadoodu. wadiifadii iyo shaqadii nebiyullaahi muusa uu hayey nebiyullaahi muxamed baa haya. min sulaalatin waaxidatin iyo min usrana way ka wada yimaadeen. sidaas darteed rasuulka ayaa ka xiga, faana axaqu bimuusa minkum. kadib buu rasuulku marka soomay sala allahu calayhi waaalihi wasalam wa amara bisiyaamihi. soomkiisiina marka wuu amray oo wuxuu yidhi dadkiina hala sooma ayuu yidhi. waxaa soo arooray rasuulku markuu yimid magaalada madiina in qolada yahuudda ah maalinta caashuuraa oo tobnaad waxay ku tarin jireen ciid inay tahay, inay iyaga ciid u tahay. marka rasuulkuna sala allahu calayhi waaalihi wasalam mukhaalafatan lahu, ilaan wuxuu jeclaa in yahuudda iyo nasaarada la khilaafo. khaalifu lyahuuda waannasaara waa ka yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam wixii ay hayaan iyo wakhtiyada iyaga ciidda u ah inuu garab maro. marka ciid hadday iyaga u tahay ciidda way dabaaldegayaan oo maalin ay soomaan meehe, idinku sooma. marka sidaasuu rasuulku sala allahu calayhi waaalihi wasalam amarka siyaamka an ayuu u bixiyey. marka rasuulka sala allahu alay wasalam sifada uu u soomi jiray maalintan tobnaad maraaxil bay soo martay. markii ugu horreysay magaalada maka ayuu rasuulku ku soomi jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam. isaga ayaa keligii soomi jiray, mana una amar ku bixinin in la soomo yowma caashuuraa oo sida la soo warinaya ama xaqiiqada ah xitaa way soomi jireen
qolyaha jaahiliga oo dhani maalintaa caashuura maalinay weyneeyaan bay ahayd. marka labaadna madiine markuu yimid rasuulku waa soomay markuu arkay yahuuddi oo soomaysaa, isaguna waa soomay markii arrintaa u sheegeen oo yidhahdeen waa maalinka aniga idinkaga xaqle buu yidhi waan soomayaa. marka saddexaad rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam waxay ahayd markii la waajibiyey bisha ramadaan, oo markii la waajibiyeyna wuu ka tegey soonkii inuu soomo caashuuraa, oo markii hore sida raajixa laleeyahay waajib bayba ahaydba oo iyada muusan ka tegi jirin, markii dambe waa daayey. ugu dambayntiina waxay ahayd rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam inuu goostay aakhira cumrihi inuusan soomin maalintan oo keliya, bal inuu ku dari doono maalinta sagaalaadna uu ku sii dari doono in sha allahu tacaala. rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam markii uu bishaan maalinta caashirka uu amray in la soomo ayaa waxaa lagu yidhi sala allahu calay wasalam xadiiskii muslim min xadiisi cabdullaahi bni cabbaas yaa waxaa lagu yidhi yaa rasuulallahi waa yoom ama waa maalin ay tucadimuhu lyahuud, nimanka yahuuddaa way weyneeyaan marka waa maalin ay soomaan oo iyagu ay weyneeyaan. rasuulkuna sidaan hore u soo sheegnay yahuudda iyo nasaarada wuu khilaafi jiray waxay sameeyaan. haddii la yidhahdo arrintan iyagaa sameeyo wuu garab mari jiray si ayna u noqonin mushaabaha iyagii waxay samaynayaan lala sameeyey. ayib marka rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam faidaa kaana alcaamu almuqbil, haddii la gaadho sanadka soo socda in shaa allahu sumnaa alyowma ataasic, waxaan soomi doonnaa maalinta sagaalaadka. sanadka soo socda haddii allana gaadhsiiyo waxaan soomi doonnaa buuhi maalinta sagaalaadka. waxaa arrin yacni dhacday ahayd maalintii sagaalaad inuusanba gaadhin rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam oo la oofsaday oo geeriyooday. ayib marka taas baa waxaa ka soo baxaysa imaamu shaafici iyo asxaabtiisii axmed iyo isxaaq iyo aakharuun intuba waxay leeyihiin waxaa marka sunno ah sawmu taasici waalcaashiri jamiican, in la soomo maalinta tobnaad iyo maalinta sagaalaad in la isku daro. rasuulkuna sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu u qastay waxay ahayd inuu khilaafo nimankaa reer yahuudeed oo iyagu caashirkaoo keliya soomaya, marka inuu garab maruu maalin kale ku daro ayaa meesha ka muuqanaysa oo labadoodii laysku wada daro. marka caashuuraa waa maalin sidaa u weyn, waa maalin rasuulku sidaa uga hadlay, waa maalin xilliyada ka mida soomkeedu waajibba uu ahaa oo maraaxiishii uu soo maray ayay ka mid ahayd. waa maalinkaa lagu dhaafayo hal sana dembigeed lagu dhaafayo. marka fadaa'ishaasaa si gaara ugu soo aroortay. wallahu aclam.